السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا ونكسن ميلو بلا جوجتان كسو دوادا قيبتي لباد ee korsadeyni basic Facebook course. Maanta waxaan sharxi doonaa taariikh yar oo ku saabsan Facebook waxaa aasaasay ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg ee saaxiibadiisa xilligii ay dhigan jireen college-ka markay marayeen sanadkii koowaad. Facebook magacii hore loo yaqaanay wuxuu ahaa FaceMash sababta loogu bixiyay waxay ahayd xilligii ay jaamacad dhigan jireen waxaa jiri jiray buug aad u weyn oo ku qornaan jiray sawirada ardayda jaamacadda. Marka waxay sameyn jireen isbarbardhig laba sawir in la soo qaado isbarbardhig oo ardaydii jaamacadda loo bandhigi jiray. nin walbo macnaha yaa labadan sawir yaa kula yeeshadan camal. 2003 FaceMash markuu ahaa Facebook waxaa loo bedelay February 2004 magacaad loo yaqaanay Facebookna waxaa lagu dhawaaqay ama uu shaabaxay sanadka markuu ahaa 2004. Facebook waxaa madax ka ah hadda ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg waana aasaasha Facebook asiyo saaxiibadiisa ayaa aasaasay Facebook. ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg hantiis waxay gaaraysaa 2019 $68.1 bilyan ay gaaraysaa lacagtiisa. ninkan wuxuu ka mid yahay 6 qofood ee dunida dhan ugu taajirsan. haddaan fiirno dadka isticmaala Facebook maxaa loo qeexaa Instagram ahaan haddaan fiirno Facebook waxaa isticmaala userska dhammaan markii la isku geeyo waxaa isticmaala 4.4 bilyan qofood isticmaasha xagga internetka marka la fiiriyo. Facebook bishii waxaa isticmaala saa u jeedaan Facebook bishii waxaa isticmaala 2,500 milyan qofood ayaa isticmaala bil walba. Facebook dadka caadiga isticmaala userska oo mar waliba isticmaala waxaa ka mid ah markaasi 2.4 bilyan qofood isticmaasha. dunidan waxaa ku nool markii la fiirshay dad dhan 7.7 qofood ayaa ku nool. haddii 7.7 qofood dunida uu ku nool yahay Facebook waxaa isticmaala 7daas qof markii dunida inta ku nool 7 milyan markii loo qaabiyo qayb ka mid ah dhan waxay isticmaalaan Facebook wuxuu ka mid yahay the social media oo loogu isticmaalka badan yahay. wuxuu ka badan yahay ama looga isticmaal badan sida maxaa loo yaqaan Instagram-ka, Twitter-ka iyo wixii la mid ah. la soco qaybta kale insha Allah waxaan ku rajaynaynaa khayr.